بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويسو دوادا كانال كينا فرس فيديو برودكشن. مانتي وحان كهدلي دونا اما مركا يسو قدبينينا ان توني فركوزن او مركا ان عيارتي ان او فيليني اما مركا رجينيني ان ولا عياري لها كانور كهور قبيب ان هوري اي وباقتي لكن ولي يستيل وحال رجينيا in marka ay dib u kulmaan hore waxaan uga hadalnay isku dhafka labadooda Kanor iyo Qabiib iyo marka Tony Ferguson waxyaabihii hore u soo sameeyeen laakiin maanta waxaan ka hadli doonaa oo marka xayad soo gudbin doonaa Tony Ferguson oo marka la dagaalamayo ninka lagu magacaabo Ederson oo marka Brazilian ah waxaan idin bala qaadinaa insha Allah fiidiyoga xigo isla ninkan Ederson Barboza oo la dagaalamayo Qabiib labadaasba way isxigi doonaan si markaa uu gaano cabirka rasmiga ah ee labada nin wada ciyaari doonaan anaga hadafkeena waxa weeyaan ama hadafka u socona waxa weeyaan Qabiib oo la dagaalamayo Ederson Barboza sidaas la mid ah Tony Ferguson oo la dagaalamayo Ederson Barboza waxa halkaas ka sii cabirnayna hadii Qabiib iyo markaa Tony Ferguson kulmaan dagaalka sidoo ahaan doona waa sheeko cajiib ah marka Qabiib iyo marka iyo aqyaartan ay ka wada hadlayeen oo dhan xagee ka tirsan yihiin way su'aasha waxay ka wada tirsan yihiin marka lightweight-kan hadda inoo muuqdo ay ka wada tirsan yihiin sidaas la mid ah maanta ama xilligan hadda la taagan yahay lightweight-kan waxa marka champion ah Qabiib ayaa champion ah Qabiib marka maadaama uu champion yahay booskiisa ayaa ku jira marka Kanor intaas la dagaalin ka hor Tony Ferguson oo marka had dirtaan leylinayo kaalinta koowaad ah usocdo inuu noqdo marka waxay ahayd championka inuu noqdo ayuu doonayaa Tony Ferguson waxa hoos u dhacay ku yimid Kanor oo kaalin labaad u sii dhacay kaalinta koowaad Tony Ferguson waxa ka galay Tony Ferguson maadaama uu ka galay Qabiibna uu yahay marka champion Kanor wuxuu la dagaalay ka hor maxaa lahaa Tony Ferguson Kanor ayaa la soo hormariyay kulankooda waa la baajiyay Tony Ferguson marka hadda waxaan fiirinaynaa Ederson Barboza iyo marka waxay ahayd Tony Ferguson waxaan dib ka soo gelin doonaa Ederson Barboza iyo Qabiib oo wada dagaalamaya ayagani muuqaalkan hadirtaan marka waxaan waxay ahayd ku soo hormarinay oo marka waxay ahayd muuqaalkan kaliis uga hadli doonaa Tony Ferguson iyo marka Ederson Barboza waxa inoo xigi doono dagaalka xiga ee marka asne aan ku soo bandhigi doono Qabiib oo la dagaalamayo marka waxay ahayd Ederson Barboza isla hadda oo la dagaalami doono marka Tony Ferguson marka cabir wanaagsan ayaan halkaas ka heli doonaa insha Allah hadee daawasho wacan for an exterminator ghost reporting I hear that waxaan u wada jeednaa marka ciyaartan kaliya labada nin oo aan ula jeedo Ederson Barboza iyo marka Tony Ferguson waan ku wajihi doonaa Qabiib daawo marka Qabiib waa soo la dagaalamay muuqaalka xiga oo soo geli doona waa sidaan hore u sheegay marka dhulka qatar uu ku yahay aad u daawo waa geed baasta asuladan ku dagaalamay inkastoo dirtaan wax illegal lagu sameeyay aan sharci ahayn hadana waa la hadlayaa dib u dagaalamay leeyahay hadana markana arantiisa xusulkiisa feerkiisa waxa dhan waa isla socdaan waajib Asuka kala duwanaanshiyo badan ma jiro ninkan Qabiib marka xaflada laga hadlo waayo ninkan uu ku wanaagsan yahay isaga ku wanaagsan sidaas la mid ah Qabiib oo ognahay in uu ku wanaagsan yahay dhulka iyo markaa tagnaanshiyaha intuba
Right there, Cap. Skinkan Ederson Barbosa oo Brazilianka way ka habaarsan waayo dhowr jeer ay markaa u ballamiyeen raggan khatarta labadaba dhibano u noqday halkan had sida u wada jeedno waxaa dhaawac xoogan markaa wejigiisa uu ku yaala Ederson Barbosa dhiiggaas hadda noo muuqdo kama socdo ninka loo yaqaano Ederson ayaan adhihin ninkan Toni Ferguson kama u socdo wuxuu ka socdaa Ederson Barbosa waxaana loo ciyaaro hore soo dhacay balse waxaa jirto ciyaartan cajiibka ayaan wada sugeen waa kana uu adkaaday hadirtaan ciyaartaasna khalaas wuu ka soo adkaaday defensiga markaa waxay eeto labadan nin Fabinho wuxuu markaa xeeto ka adkaaday ninkan Debatris wuu ka fiir badnaa wuu dhibaatooyin gaarsiiyey laakiin sida ka tirsiga oo iga fujayda ah ma uusan sameyn ugama uusan adkaanin waana daawan doontaan videoga xigay noqon doona insha Allah asxaabteena la soo dhaweeya sheerta iyo markaa xeetanayna wiilka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bye bye